السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magaciisu waa Salvin Helaine, sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Freaky Hoodie. Waa macallin, jilaa iyo modelman. da'diisu waa 35 sano jir. Waxa uu bilaabay inuu tattoo-ga jirkiisa ku sameeyo markuu jiray 27 sano, markaas oo uu macallin ka ahaa private ku yaala wadanka Ingiriiska ee magaalada London. Isagu waxa uu ka soo jeedaa wadanka Faransa. Jirkiisa dhan waa wada tattoo, xitaa carabkiisa, ciridkiisa, indhihiisa, waxaana la sheegaa inuu yahay ninka ugu tattoo-ga badan wadanka Faransa. Waxa uu sidoo kale macallin ka noqday wadanka Faransa iskoolada dhexe mid ka mid ah, wuxuuna u dhigi jiray ardayda ka yar 6 sano. Markii la fiiriyo, waxa uu muuqanayaa mid laga cabsanayo. Taasina waxay kaliftay in carruurtii uu wax u dhigi jiray ay ka cabsadaan. Waalidka dhalay carruurta ayaa maamulka iskoolka u soo gudbiyay cabasho, taasoo ay sheegeen in carruurta habeenkii ay qarwaan, waxayna codsadeen in macallinka laga bedelo. Isagu laakiin wuxuu yidhi, yaan lagu mashquulin jirkayga ee uun hala fiiriyo aqoontayda. Kadib ayaa laga wareejiyay ciyaalkii ka yaraa 6 sano oo loo wareejiyay kuwii ka weynaa 6 sano. Ninkan ayaa sheegay markii uu wadada marayo inay dadku aad ugu mashquulaan tattoo-ga jirkiisa lagu nashqadeeyo oo idil. Waxaa ku baxda lacag gaaraysa 35,000 oo euro. Ninkan ayaa waxaa la dhashay hal gabar, sidoo kale waxa uu la nool yahay hooyadiisa iyo aabihiisa. Waxa uu bartiisa Instagram-ka ku soo gudbiyaa sawirro la yaab leh, waxaana bartiisa Instagram-ka ku xiran 74,600 oo qof.